محمود حاشي طريق جرتو أنا تفتحلي مقدر مدحتوي محمود حاشي ما نجى سرقنا هذا تيم أوجه جريء labada sano dawladda ma ka filaysaa in dhamaystirto waxyaabaha ballan qaaday maadaama 3 sano dhamaadeen ma sababtaan ugu filan maxay tahay horta tima jarida iyo kabaha iyo waxan horta dhigayso may horta waa profession aniga aabahay adeerkay awowgay إن الحين هلاي موادين باروها وأنا الحين واريا دقيس أنت تعب وأنا دقيس دد بروفيشنال وشقيستا وأنا بقرفت أنا كويا دد بروفيشنال واريا هاد بروفيشنال وشقيستا وكرامله ومرغماله وبينكم ما لبنا نقولنا مقرفت انت لو هرجسنا مقرفتكم ما دورسن كرامتنا قبل aqooneed dad ka soo jeeday warsiga xisbiga war ogolow gaalada hadaan la aqoon Allah ya kula waxbaro jaamacada been badan siyaasaddan isku qabanay waxbarashada isku qabanay adigoo maadsan barqaalku ka xidhi nuxurku wax weyn doodeenu inaynu bulshada fahansiino halkaynu taaganahay si qodobkii su'aashiidii mar labaad ku celinaya maxaa laga fili karaa xukuumadda kulmiye ee madaxweyne biixi in ay labada sanadood ee soo socoto ku rajadiinu maxay tahay qodobada meesha aanu su'aasha ka hadlaya kama shakhsi meerar meesha ma yaalo qodob baynu ka wada hadlaynaa maxaad ka filaysaan anagu waxaanu ka filaynaa inaanay wixii loo doortay aanay qaban karin saddex sanadood waxay ku qaban weyday istiraatiijiyad iyo siyaasad ay ka yeelan weyday intaan sheegay caafimaad iyo biyo ictiraaf iyo caalamka loola xiriiro iyo horumar iyo dekado iyo maxay tahay meesha la yiraahdo ay ku qaban kari waayeen meesha ay ku qaban kari waayeen dood inaan leedahay inuu miskiin tahay ardo waa masabid ardo war dood jirida ku taagan baan ugu jirida inta taa ku qaban kari waayeen sanadii 12 bilood oo hore kuma qaban karayaan daawadayaal waxaynu intaasi kusoo gabagabayn doonaa doodeenaasi u dhaxaysay afayeenada xisbiyada kulmiye iyo wadani oo kala matalaya xisbiga xukuumadda ee dawladda iyo xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanu ka cudur daaranaynaa inaanu casuunay xisbiga mucaaradka cid balse ay arintaasi ka cudur daarteen in doodaasi ay ka qayb galaan doodeena ayaa waxa ay ku qotantay 3 sanadood ee ugu dambeeyay ee xukuumadda madaxweyne biixi ay xilka haysay maxaa u qabsoomay maxaa la taaban karo meesha yaala ma jiraan maxaan qabsoomin halkay dhaliishu ka jirtaa maxaa bulshada Soomaaliland ku noqday maxaanse ku noqonin in la isxisaabiyo xisbiyada qaranka oo ay bulshadu aragto waxay qabsadeen iyo waxaanay qabsan waa mas'uuliyad saaran ummadda Soomaaliland oo ay codkooda ku doortaan xukuumadooda ay doonayaan si taasi ay dadku u arkaan wixii qabsoomay ayay miiska u nimid barnaamijkan waxay idin socodsiinayay MMTV waxaan mahad gaar ah u naqayaa afayeenka xisbiga xukuumadda ee kulmiye عبد الناصر بوني يا أفيانك حسبك ودن